shir madaxeedkii ururka iskaashiga islaamka ee ka socday magaalada barakeysan Makka ayaa maanta soo gabagaboobay waxaana hogaamiyaashu ay ka soo saareen marmurtiyad wadajir ah. haddaba shirkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku joogay gudaha magaalada barakeysan Makka. waxaan ku sugannahay magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama halkan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u yimid laba shir oo muhiim ah. kii hore wuxuu ahaa shirkii jaamacadda Carabta ee degdega ahaa ee uu isugu yeeray Boqor Salmaan bin Cabdilcaziz. kan haatan la soo gabagabeeyay wuxuu ahaa kii ururka iskaashiga islaamka. shirkan waxaa diiradda lagu saaray runtii amuuro fara badan oo dalalka ku bahoobay ururkan taabanayay amnigooda iyo horumarkooda. waxaana laga soo saaray baaq wadajir ah oo lagu magac daray baaqa Makka, kaasoo ahmiyadiisu ay ahayd xoojinta midnimada iyo wadajirka shucuubta iyo dowladaha ururka iskaashiga islaamka ku midaysan. waxaa kaloo jiray oo lagu cambaareeyay loogana hadlay ururada argagixisada ah iyo falalka argagixisnimada ah in meel looga soo wada jeesto. Soomaaliyana ahmiyad gaar oo shirkan runtii u lahaa intii uu socdana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kulamo gaar la qaatay madax iyo amiiro iyo boqorro shirka ka soo qayb galay. waxaana runtii kulamadii xalay uu galay ugu muhiimsanaa kii uu la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Sacuudiga iyo Soomaaliya iyo sidii dowladda Sacuudigu ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dowlad dhisidda iyo garab istaagga shacabka iyo dowladda Soomaaliya. shirkan iyo kii ka horeeyay madaxweynaha waxaa ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiir dowlaha madaxtooyada xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fursad.